weerarkan oo loo adeegsaday bam gacmeed ayaa waxa uu ka dhacay guri ay deganayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. saddexda xildhibaan ee ku dhaawacantay weerarka bambaanada ayaa waxa lagu kala magacaabaa xildhibaan Aadan Maxamed Muuse, xildhibaan Duwane Faarax Cali iyo xildhibaan Cismaan Cabdullaahi Dhoore. qaraxa bamka kadib ayaa la maqlay rasaas badan oo ay fureen qaar ka mid ah ciidamada ammaanka magaalada Jowhar oo halkaasi ka agdhawaa. ila lagu kalsoon yahay ayaa VOA u sheegay in mid ka mid ah xildhibaanada qaraxa lagu tuuray uu dhaawaciisa culus yahay. weerarka bambaano ayaa waxa uu ka dhacay meelaha sida weyn loo ilaaliyo maadaama ay u dhowdahay goobaha ay degan yihiin musharaxiinta aqalka sare iyo xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. magaalada Jowhar ayaa isu diyaarinaysa doorashada xildhibaanada aqalka sare oo maalmaha soo socda lagu wado inay ka dhacdo. magaalada ayaa waxa buux dhaafiyay musharaxiin, siyaasiyiin iyo dad kale oo qayb ka ah ololaha loogu jiro doorashada aqalka sare. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Jowhar. markana magaalada Jowhar halkaas oo xalay fiidkii lagu dhaawacay 3 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Soomaaliya. waxa la soo warinayaa in xaaladda caafimaad ee xildhibaanadaasi haatan ay degan tahay, iyadoo weerarka lagu qaadayna loo adeegsaday bam gacmeed ee lagu tuuray guriga ay magaaladaasi ka degan yihiin. ciidamada ammaanka ayaa durbadiiba waxa lagu soo daadiyay magaalada, waxaana ay wadaan baaritaan arrintaasi la xiriira. hase yeeshee ilaa haatan may jirto cid ay arrintaasi u soo qabteen. weerarkanna waxa uu imanayaa xilli magaaladaasi lagu wada dhowaan in lagu qabto doorashada xildhibaanada golaha aqalka sare ku matali doona maamulkaasi Hirshabeelle. haddaba si aan faahfaahin dheeraada umurtaasi ugu helno waxaan khadka taleefanka ee Jowhar kula xiriiray xildhibaan Maxamuud Wabar Xasan oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. طبعا حال waxa dhacay bomba ayaa lagu tuuray guri ay deganayeen xildhibaanada 3 ah oo kamid ah xildhibaanada Hirshabeelle. ayagana hadda xaalkooda waa u dhaawacmeen oo isbitaalka Jowhar ay yeelaan. waxaan rajaynayaa insha Allah Ilaahna uu bareynaa inuu caafimaad degdeg siiyo. adiga weerarka markuu dhacay kadib xildhibaanadaas dhaawac uu soo gaaray ma aragteen xaalkoodu waa sidee? walaal waa aragnay isbitaalka ayaan ugu tagay, way roonaayeen alxamdulillah. aad iyo aad u fiican xogaha halina dhaawaca u darnaa oo xogaha dhowr meel ay firir soo gaareen. sidoo kale miirka waa qabeen oo dhaqaatiir ayaa la joogtay oo ka howlgelayso maartay daaweynayay oo shaqada waday. ma la ogyahay cidda weerarkan soo qaatay? maya lama ogo. kulli bomba uma guriga lagu tuuray wax ka horeeyay ama rasaas ama ka dambeeyna ma jirin. cid lagu tuunsan yahay weerarkan inay ka dambeysayna wallahi la hadda wax cad oo la hayay ma jiraan. kulli arrinkaas waa u dhacay dabcan kulli lama amnigana uu war sugeynaa. marka waxa tuhuna oo ama xildhibaanada maartay dhexdooda ama wax kala midna ma jirto. xildhibaanada 3 ee weerarkan uu dhaawac ka soo gaaray ma kaligood baa meesha joogay mise dad kale la joogay? dad kale la joogay oo goobta ka agdhawaay guriga bay deganayeen. ayaga gurigiina waa bombada lagu soo tuuray. marka saas ay wax ku gaareen. cid kale wax ku noqotay weerarkaas? maya cid kale wax ku noqotay ma jirto. weerarka sidoo in ku soo gaaray idinka? magaalada joognay dabcan waxaan soo gaaray in xildhibaanada dhaawacmeen guriga bomba loogu tuuray. kadibna isbitaalka ayaan aadnay. isbitaalkana ku soo aragnay ku booqnay xaaladooda caafimaad siday tahay. marka waxaan nolosha guriga bomba in loogu tuuray intaasana soo gaartiyaan isbitaalka ugu tagnaa soo aragnay. wala arrintan oo kale marka hore ma uga dhacday magaalada? waa yar maya weli xildhibaan bomba lagu tuuray ma jirin waxda ka horeey. sidee uga falceliyeen marka ciidamada ammaanka ee magaalada Jowhar weerarkan? wallahi ciidamada qaybahooda kala duwan dabcan howlgal ay wadeen eerida wax ka dhaceen iyo guud ahaan magaalada howlgal ay ka wadeen. ayagana kulli on maartay ku raad joogay oo arrimahaas u xil saarnaa. ayagana kulli wixii jawaab aan suginaa. wax wara oo ay soo saareen ilaa hadda? kulli wixii xil habeen ay dhaceen howlgalkana dabcan waxaan rajaynayaa inay weli ku jiraan. welina hadda waxna soo gaar ma arkin, laakiin ayagu baa weli ku suginaa. ogaalka marka cid ilaa haatan ay ciidamada ammaanka weerarka u soo qabteen? ma weli ma maqal. weli ay soo gaari ma ciidamada ammaanka ma sheegeen xilliga ay soo gudbin doonaan baaritaanka ay haatan wadaan? kulli ayagan weli ku sugeynaa in hordhaca ma rabo. marka wixii howl ayaga maartay howlaas ku xil saaran. marka shaqadooduna waa ka warsugeynaa. markuu weerar ka dhacay kadib dhaqdhaqaaqii magaalada maxaa iska bedelay? magaalada sideed waaye waxaadoo maartay weyn isbedel ma laha. ciidamadu ma howlgal iyo shaqadoodu watay. dabcan wixii kale howla ama magaalada ayna waa sideeda shaqeynayeen, laakiin meel walba ciidan baa joogay howlgalkaas ay ku jiray. wax kale weyn oo hadda isbedel oo ma dhibaato ma jiraan oo magaalada u furta culays oo kale ma jiraan. xildhibaan Maxamuudow, magaalada Jowhar waxay ka mid tahay magaalooyinka u astaysan in lagu qabto doorashada aqalka sare iyo waliba midda kale ee golaha shacabka ee Soomaaliya dhawaan la qaban doono.
adiga la fahantaad waxaa tahay afhayeenka guddiga doorashooyinka ee aqalka sare ee doorashada qaban doona marka ma la isku halayn karaa ammaanka magaalada walaal hadduu ilaah yidhaha doorashadu way dhacaysaa ammaanka magaaladan waa la isku halayn karaa soomaaliya waana garanaynaa amada dhacdo way dhacdaa oo hadda waxaa weeyaan waxa oo cusub ma ahan doorashana dabcan waqtigeeda waa joognaa murashaxiinta iyo guud ahaan guddiyada haddii aan leed oo qabanqaabada doorashadana hawshooda way wataan marka taa waxaa weeyaan amnigeeda guud ahaan wax hadda welwel aan ka qabno ma lahan waa la isku aamin karaa waana la isku soo halayn karaa waxa culaysa ma jiraan kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamuud wabar xasan oo ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle ee soomaaliya oo khadka taleefanka igu waramayay